way seen u qurxino halkan sare iman doonaa kadibna waxaan oran doonaa row noogu dar rowgeenana waxaan ka xidhi doonaa halkan dhifta dabadeeda ayaan oran doonaa hana looga xidho dhifteeda ka halkan hore ka xidhmayana waan iska masixi doonaa rowga xagga dambe uu macnihii ka xidhnaanaya kadibna halkan gudaheeda markaan imaadana waxaan oran doonaa column baan u baahanay columnkeenuna sida caadiga ah wuxuu ka xidhmi jiray maxay waxay nooga xidhmi doonaa halkan halkan nooga xidh baynu odhan doonaa isagana intan haddaynu eegno oo hadda productgeennii buu inoo soo bandhigayaa pagekeenii hore inoo samaysnaa haddaynu refresh ku samayno markii hore product list buu inoo soo bandhigayay iminka haddaynu dhaha refresh noo samee wuxuu inoo soo bandhigayaa maxay iPhone 15 oo noqonaya magacii productgeenna iyo halkii uu ku jiray ayuu inoo soo bandhigayaa intan haddaynu ka soconno waxaynu arkaynaa sawirkii bay naga maqan sawirkeena si aynu ogaano halkan image baynu nidhi laakiin halkayga kale haddaynu eegno modelskeena image nooguma jira waxaa noogu jira maxay photo ayay noogu jiraan marka waxaan odhan doonaa waxaan u baahanay waxa naloo soo bandhigaya waxa weeye maxay footada ayaa naloo soo bandhigaya footadeenna hadda haddaynu dib u tasdigarayno aynu refresh kala samayno mar kale aynu idhaahno noo tijaabi maxaa noo haysaa wuxuu inoo soo bandhigay maxay taleefankii uu inoo hayay mar labaad haddaynu idhaahno halkan local host waxaan u baahannahay pageka adminkaynu u baahanay oo product kale aynu soo gelinaynu idhaahno adminkayga wuxuu la mid noqon doonaa sidii hore oo product labaadaan samaysto add product baan idhi shay cusub baan u baahanay kadibna tusaale ahaan macbook pro baan idhi sample productgiisa categorigiisa ma samaysna haddaynu odhan doonaa noo samee kadibna waxaan idhi categorigiisa wuxuu noqon doonaa computersku ka tirsan yahay kadibna noo save garay choose baan odhan doonaa halkan noo soo door sawir pc aan soo dooranaya markaa waxaan idhi waa mac book pro baan idhi sample oo kale information ka yar bay raacanay hadhowna sii qurxinay shay labaad baan haysanaa shay saddexaad haddaynu idhaahno tusaale ahaan noogu dar oo tusaale ahaan oo kale dhegaynu iibinaynaa dhegayn leena iyagana noogu soo dara headphones aynu idhaahno bracekoodana waxaan idhi 230 bay noqon doonaan oo apple headphones weeyi kuwana haddaynu idhaahno magacooda halkan headphoneska ka tirsanaan doonaan headphoneskeena waxaan idhi iyagana tusaale ahaan airports bay igu jira airports baan soo doortay sawirkooda kadibna waxaan idhi waa airports sample saasaan iska idhi information badan kama bixin 3 product baynu haynaa hadda pagekeenii haddaynu refresh garaysano waxaan haysanaa waxay noogu jira maxay 3 product oo kala duwan ayay noogu jira saddexdeena product markaa waxaynu u baahanay shaqadaynu qaban doonaa waxa weeye inaynu kaartiga ama salada aynu ku darsanno ayaynu u baahanay productskeena haddaba kaartiska habkaynu ugu darsanay productskeena saynu kaartiska ugu darsanno waxay rabnaa functionkeena inuu inoo shaqeeyo functionkaygan hadda haddaan taabto ama add to cart aan idhaahdo ma jirto meel la geynayo xogtayda si xogtayda haddaba meel la geeyo waxaan odhan doonaa shaqadaada ii qabanaysaa waxa weeye waxaan u baahanahay shay labaad oo ii soo bandhigaya maxay kaartigayga marka waxaynu ku noqon doonaa cursorkeena waxaan samaysan doonaa html file kale aynu la baxnay tusaale ahaan cart kadibna waxaan odhan doonaa wuxuu noo hayn doonaa maxay html buu noqon doonaa isagana sidoo kale waxaan odhan doonaa sidii hore wuxuu samayn doonaa extends buu samayn doonaa faylashii hore way noo dhaxli doonaa fariintan ayuu isaguna inoo haya function si aynu samaysana haddaba waxaan odhan doonaa halkan aynu iman doonaa waxaan odhan doonaa function noo samee functionkaygana wuxuu inoo samayn doonaa add to cart ayuu inoo samaynayaa function bay samaysanay kadibna waxaan idhi wuxuu inoo samayn doonaa add to cart ayuu inoo samayn doonaa add to cartigaygu markuu ii sameeyo waxaan odhan doonaa sida caadiga wuxuu samayn doonaa ama shaqadu qaban doonaa waxa weeye wuxuu soo heli doonaa marka hore productska waxa ku jira kadibna haddii productskeena uu soo helo waxaan uga baahannahay productiga waxa ku jira xabad buu ku dari doonaa objectigan iyo waxyaabahana la yar waayey halkan sare dhiman doonaa waxaan odhan doonaa labadan shay noogu soo dar halkan waxaan odhan doonaa cartis iyo cart item ayaad noogu soo daraysaa labadan haddaynu qabanay pageka waxaan idhi macnihii add to cart wuxuu inoo samayn doonaa productigu soo heli doonaa kadibna productiga marka la soo helo modelkeena waxaa la raadin doonaa productiga maxay idgiisa la helaya kadibna haddii idga la soo helo qofka xogta soo dalbaday hadhow macnihii waa loo kaydin doonaa ama cidda soo dalbatay waxaa la sheegi doonaa in hebel uu soo dalbaday haddii aanu create garaysnayn haddaa loo samayn doonaa haddii hore u create garaysnaana waxaa la samayn doonaa kii ayaa loo soo bandhigi doonaa
mar labaad waxaan leenahay waxaad noo samaysaa function labaad functionkeena wuxuu inoo qaban doonaa kaartigeena wuxuu samayn doonaa maxay card view ayuu inoo samayn doonaa dif bay leenahay noo samay function kale functionkeena waxaan loo baxnay waxaad noo samayn doontaa maxay view card baan u baahanay kaartigayga markaa waxaa laga soo heli doonaa wixii igu jiray maxay kaartigayga waxaa laga soo heli doonaa marka hore kaartiga wixii igu jiray ayaa la soo heli doonaa mar labaad wuxuu samayn doonaa return iyo render ayuu inoo samayn doonaa intan inoo soo akhriyaya waxay noo soo akhriyi doonaa cart items waxa ku jira waxay noqon doonaan maxay waxa ku jira maxay cart items ayay noqon doonaan right intan haddii aan tasti garayno studio rli naga maqanay url iska tagi doonaa kadibna halkan hadday nimaadno oo intan idhaahdo laba shay buu siinaya labadaba safe baan odhan doonaa intan kusoo darsado kadibna intan oo qolaata ku dayn mayne waxaan tegi doonaa page-keena inaan nidhi waxaa la idhahdaa maxay product.html html bay iska masixi doonaa kadibna suggestionka waxaa lainoo soo jeedinayaa in product id gu la mid yahay waxa ku jira maxay product id intan ku dayn mayne waxaan tegi doonaa maxay kaartigeena kadibna waxaan odhan doonaa xogteeda waxaan kusoo bandhigaynaa maxay kaartigayga ama salada ayaan wax kusoo bandhigaynaa marka saladeena si aynu ugu soo bandhigno dhowr option wayn haysanaa laakiin I prefer waxaan dalbidayaa ama doorbiday lahaa inaan isticmaalo qaybtiin odhan jirnay table marka wuxuu inoo helayaa itemskii oo dhan haddaad arkaysid oo imika haddaan qaybtan dalbado iyada laftirkeeda wuu igu soo bandhigayaa indiforna waan idhi okay wuu ii dhamaystiray safe haddaan idhaahdo intan dhiftaana waan xidhay I think waxba kama dhina haddaan intaa dalbado ama qaybtaasi uu soo jeediyey waa kan marka aan tasti garayno si aynu tasti garayno waxaan odhan doonaa shaqada noo qaban doontaa waxa weeye page-kaygii baan sameeyey ku noqday refresh baan nidhi markaa refresh haddaan sameyno waxaan nidhi add to cart salada noogu rid salada markaan ku ridnay waxaa laynagu haystaa in here salada markasta wax lagu tuurayo waxaa laynagu haystaa carti wuxuu la mid yahay carti sidoo kale cart item dot objectska waxaa lasoo heli doonaa maxay shayada meesha ku jira marka objectska waxaa laynagu yidhi has no attribute object macnihii ma laha attribute la yidhaha maxay 404 ma laha 404 waxay ku jirtaa cart item dot objects get bay nidhi lineka tobnaad buu inoo sheegayaa markaa linkeena tobnaad bayna eegi doonaa iyo waxay naga qaldan kadibna wayn hagaajin linkeena tobnaad haddaynu eegno viewsku ina jeedaa waxaan nidhi waxaad soo heli doontaa macnihii add to cartiga weey linkeena tobnaad waxaan nidhi waxaad noo samaysaa variable la yidhaha cart itemkayga waxaa noqon doonaa inaanu creator samaynay kadibna cart itemkeenii horaa wax laynooga shubi doonaa kadibna waxaa lasoo heli doonaa objectska ama get soo noqon doona maxay 404 baa soo noqon doonaa marka mushkiladii jirtaa waxa weeye 404 ma baahnin waxaan u baahanay in shay aan la haddii shayga la waayo macnihii create laynoo sameeyo shayga haddii la waayo waxaan uga baahanay maxay create inuu inoo sameeyo oo waxay noo soo kordhiyeen u baahanay intaan haddaynu eegno dib u refresh garayno xabad buu inoogu daray marka add to cart haddaan idhaahdo add to cart way dhacaysaa laakiin still functionality-gii ma arkayno add to cart bay nidhi mar kale add to cart bay nidhi mar kale waxaan eegaynaa markaa page-kan aynu tilmaamnay inaynu tegayno maxaa laynoo geyn waayo control z clear bay leenahay dib baynu ran garaynaynaa kadibna waxaan leenahay halka waxaad nooga geysaa maxay add to cart ayaad noo geynaysaa kaartigeena layna geynaya baynu eegi doonaa productiga lagu darayo waxaan nidhi xog baa soo noqonaysaa marka xogtan ritanta uu inoo sameynayay halkan haddaynu arkayno waxaan nidhi waxaad noo soo celisaa product liste ayaad noo soo celin doontaa laakiin instead product liste halkaad noo soo celinayd waxaan leeyahay waxaad annaga noo soo celin doontaa magaca la yidhaahdo view